As we look ahead to 2020 and what will be a critical year for Somalia, we have been engaging with a range of stakeholders. James Christopher Awan oo ah diblomaasi Mareykan ah waxa uu xilka ergeyga xogayaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya ka bedelay garyaqaan Nicholas Haysom oo ahaa isna diblomaasi Ingiriis ah oo ku takhasusay dawlad wanaagga iyo doorashooyinka. Antonio Guterres xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa September 2018 waxa uu Haysom u magacaabay xilka ergeyga xogayaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya. Hayeeshee isaga oo aan dhameysan muddaxileedkiisii ayay isqabteen xukuumadda Soomaaliya kadib markii uu su'aal ka keenay sharci ahaan waxa loo cuskaday xariga amiir ku-xigeenkii hore ee al-shabaab Sheekh Mukhtaar Robow Cali oo ahaa markaas musharaxa doorashooyinkii madaxweyne ee dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya sanadkii 2018. Nicholas Haysom waxa ay xukuumadda Soomaaliya xilligaas ku eedeysay inuu madax bannaanida waddanka farageliyay isla markaana u gafay hab maamuuska iyo dhaqankii diblomaasiyadeed ee xafiiska qaramada midoobay. Sidaas awgeed wasaaradda arrimaha dibadda ayaa soo saartay xaashida persona non grata oo macnaheedu yahay diblomaasigaas waddanka lagama rabo kamana shaqayn karo. dalalku go'aankooda iyaga iska leh dad ku khaldan yihiin dad ku saxsan yihiin marka horta mabdaas guud inaan ka guuro waaye inaa ogaataan waaye Soomaalidu ogaato inaan dawlad nahay. BNG waa xaq qodobka sagaalaad ee baaqa Vienna ee xiriirka diblomaasiyaddu uu siinayo dhammaan wadamadu inay eryi karaan diblomaasi kamid ah howlgalka ka socda waddanka iyada oo aan wax faahfaahin laga bixin go'aanka eriyada. James Christopher Awan kadib magacaabistiisii May 2019 waxa uu bilaabay booqasho iyo wada hadallo joogto ah oo uu la yeelanayo madaxda dawlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir iyada oo xiriirka dawlad goboleedyada qaarkood iyo xukuumadda dhexe xumaaday kadib khilaaf madhalays ah oo dhex maray madaxda. Awan isaga oo ka faa'iideysanaya dalada beesha caalamka waxa uu bilaabay inuu madaxda dawlad goboleedyada kala hadlo arrimo ay suurtagal tahay inay xaraf iyo micno ahaanba u xanuujiyaan xukuumadda Soomaaliya kuwaas oo ay kamid yihiin xaqiijinta in doorashooyin heer federaal ah oo la qabanayo waqtigii loogu talagalay oo ah dabayaaqada 2020 iyo horaanta 2021 ay ka dhacaan waddanka iyada oo aan muddaxileedka loo kordhin karin hay'adaha fulinta iyo baarlamaanka. xaqiijinta matalaad cadaalad ku dhisan oo ay helaan dhammaan bulshada Soomaaliyeed in xukuumaddu fursad siiso dadka Soomaaliyeed si uu si toos ah ugu soo doorto wakiiladiisa iyada oo la adeegsanayo hanaanka qof iyo cod in xisbiyada siyaasadda kaalin laga siiyo doorashooyinka in xukuumaddu damaanad qaado matalaadda ugu yar ee 30% in haweenku ku yeeshaan baarlamaanka federaalka in xukuumaddu taageero ballaaran ka haysato dhammaan daneeyayaasha Soomaaliya ee hawsha qusayso in hanaanka doorashooyinku noqdo mid si hufan oo ammaan ah loo hirgelin karo soona jiidan kara maalgelin ku filan in xukuumaddu horseedo doorashooyin nabdoon oo lagu soo doorto madax haysata sharciyad ballaaran iyo inay ixtiraamto waajibaadka shaqo ee guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka. James Awan waxa uu booqday dawlad goboleedka Puntland oo isu taqaana dawladda Puntland qodobka saddexaad ee dastuur goboleedkeedana ku qoratay in inta laga dhammaystirayo dastuur federaal ah oo Puntland wax ka ansixisay dabadeedna afti dadweyne lagu meelmariyay inay Puntland lahaanaysa awoodda dawlad madax bannaan sidii loo dardargelin lahaa horumarna looga sameyn lahaa arrimaha hortaagan in ay dawladdu Soomaaliya ay hore u dhaqaaqdo. runtii waan uga mahadcelinaynaa kulankaas wada hadalladii waxay ku soo dhamaadeen si wanaagsan oo ugu horeyso sidii loo dardargelin lahaa xiriirka ka dhaxeeya dawladda dhexe iyo dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka oo aan rajaynayno in ay maalmaha soo socday waqtiga soo socda ay dhici doonto kulamo intaan ka sii ballaaran oo lagu gaari doono sidii loogu diyaar garoobi lahaa doorashooyinka 2020. waxa uu la kulmay madaxweynaha dawlad goboleedka Jubbaland oo doorashadiisii dhalisay muran sababay in madaxweynayaal badan ka soo baxaan Kismaayo. waxa uu booqday dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo doorashadii rabshadaha wadatay ee ka dhacday sanadkii 2018 ay kamid ahaayeen waxyaabihii lagu karhay Nicholas Haysom. waxa uu tagay Hirshabeelle oo ay ku soo food leedahay doorasho hayeeshee muddaxileedkeedii dhamaystirka uga dhamaaday xaluhelida Hiiraan. waxa uuna la xiriiray madaxweynaha xilkiisu dhamaaday ee Galmudug oo isna xilkiisii gaarsiinta ku dhamaystay khilaaf Galmudug iyo Koonfur Galbeed. waxa ay ku fashilmeen dhismaha hay'adaha dawlad goboleedka sidaas awgeedna waxa ay xukuumadda dhexe uga baahdeen dhismaha hay'adaha dawlad goboleedka. Hirshabeellana kama foga waxa ku dhacay labada hore. Awan waxa uu dhammaan madaxda dawlad goboleedyadaas kala hadlay doorashooyinka la filayo inay ka dhacaan dalka sanadka 2020-2021. 2019 draws to a close. We are reflecting on the progress made this year
2019 way dhamaatay sidoo kale waxaan ka hadalnay falcelinta ku saabsan sanadkaasi ee horumarka la sameeyay waxaan fiirinaynaa 2020 waxa ay Soomaaliya u tahay sanad caqabado badan waxaan halkani u joognaa sidii aan ugu lug lahaan lahayn diyaarinta maamulka dhageysiga aragtidooda ku saabsan hanaanka maamulka qaran iyo muhiimadda lagu gaari karo 2020 waxa ku jirta diyaarinta doorasho qof iyo cod ah dhameystirka dastuurka federaalka wadida horumarka iyo dagaalka ka dhanka al-shabaab maadaama sanadkan uu caqabado badan leeyahay qaar ka mid ah saaxiibada Soomaaliya ee ku shaqada leh awoodda dawlad goboleedyada odayaasha iyo bulshada rayidka ee isaga gudba dunida booqashadeena maanta waxaan casuunay qaar ka mid ah bulshada rayidka iyo hogaamiyaasha bulshada ee aanan awood u lahayn inay nala kulmaan Jubbaland xaaladda siyaasadeed waxay baaqi ku tahay mid aan sal dhigan laakiin Jubbaland iyo dadkeedu waxay ciyaareen door fiican ee ku saabsan halka Soomaaliya ay u socoto 2020 ma rajaynayno in aragtidooda ay isxirto booqashadeena maamulka waa fursad aan ku fahmayno saamileyda xogta ku saabsan waxa kala qaybinayo iyo xalka suurtagalka ah iyada oo wada hadal loo marayo ka go'naanshaha dhaqangelinta iyo mudnaanta danaha qaranka waxay noo tahay wax weyn matalayaasha aan la kulannay ee nala wadaagay fikradooda cutubka Soomaaliya ee 2020 waa wax la gaari karo waxay u baahan tahay wada shaqayn xoogan oo maamulada dhan ah 2020 waa sanad taariikh u leh Soomaaliya waxaan ku dhiirigelinaynaa hogaamiyaasha Soomaaliya hay'adaha iyo bulshada in ay isku raacaan wada hadal ku saabsan sida hore loogu socon karo lana xaqiiqsado sida la isaga kaashan karo muhiimadda sanadka We encourage all Somali leaders, institutions and communities to engage in dialogue. 2020 will be a pivotal moment for Somalia. 2020 waxay u ahaan doontaa Soomaaliya marxalad kale waa qayb ay ku jirto geedi socodka qaranka habkani waa mid lagu abuurayo horumar ku socda dastuurka Soomaaliya si loo qabto doorasho qof iyo cod ah lana sii wado la dagaalanka al-shabaab iyo dhisidda habkii Soomaaliya ay dimuqraadiyad ku gaari lahayd si loo gaaro ahdaaftaasi waxa loo baahan yahay wada shaqayn firfircoon oo guud ahaan dawladda iyo dawlad goboleedyada gaar ahaan waxa looga baahan yahay hogaamiyaasha dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada sidoo kale gaarista go'aanada waxaan ku dhiirigelinaynaa inay noqdaan wada hadal midba midka kale oo la sameeyo iyada oo ay ku jiraan dawladda dhexe dawladaha qaybta ka ah bulshada rayidka ah iyo dadka Soomaaliyeed waxaan idin xusuusinayaa hogaaminta 2020 in si wanaagsan ay ugu lug lahaadaan dawladda dhexe iyo dawladaha qaybta ka ah iyaga oo fahmaya fursadaha caqabadaha iyo dhameystirka geedi socodka 2020 ee Soomaaliya It is with this in mind ahead of this critical juncture in 2020 that we are engaging national as well as federal member state stakeholders to understand the opportunities and challenges for implementation of these processes for 2020 in Somalia. waxaan ku soo gabagabeynayaa koonfur galbeed Soomaaliya waxaan uga mahadcelinayaa soo dhaweynta diiran waxaan si weyn uga mahadcelinayaa maamulka odayaasha iyo matalayaasha bulshada rayidka ah oo aan kulannay waxa ayna beesha caalamku la kulantay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka gudoomiyaha golaha shacabka gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka taliyaha booliiska federaalka oo ah gudoomiyaha guddi howlaadka amniga doorashooyinka iyo ra'iisul wasaare xasan cali khayre haddaba maxay u jirtaa James Iswan in lagu soo saaro BNG si sahlan ugala soco 89.7 FM mustaqbal radio warbaahin wax dhista